إذن شيء جاية أنا أبوه الرئيس مدحوينه أنا قبيل ملي أنا من صومالي بأنا هاي صومالي باي دورتي صومالي ده مدحية قف أن سود ويسنا قبيل سود ويسنا مجري دوره قف أن قبيل كفوجينا مجري برا مينستركا markii aan magacaabay saddex arrimood iyaan ballan ku galnay midda koowaad waxay ahayd musuqmaasuq inaan ka fogaano midda labaadna waxay ahayd in maxaan ku yiraahdaa aan wada shaqeyno oo khilaafaadka iska ilaalino tan saddexaadna waxay ahayd in dadka iyo dalka aan u adeegno oo si daacad ah ugu adeegno macnaheedu waxay tahay isaguna qabiil ma laha qabiilna ka shaqeyn maayo maxaa yeelay wuxuu mathalaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan yu mathalaa waa sax qabiil baa sheeganaya laakiin waxaan kula taliyay isaga inuusan qabiil sheegan ma dad baan nahay lagu yaqaanay karti iyo sharaf oo magacooda la yiraahdo Soomaali oo taariikhda Afrika iyo dunida laga yaqaan oo sharaf laha mise waxaan noqonaa inaan niraahdo hebel xabad baa lagu dhuftay hebel baa ku dhuftay Allah u naxariisto hebelka ku dhuftana waxba laga ma qaban karo waaye hebel iyo hebel baa qeylin doon bas inaan saad rabtaan dalkan inuu ku socdo haddii ay jawaabtu maya tahay haddii damiiro ay nagu hartay haddii aad rabtaan caruurtiin inaad wax uga tagtaan haddii aad rabtaan sinna inaad u soo celisaan karaamadda iyo ummadda Soomaaliyeed lama sugi karo berito maanta waa inaad istaagtaan maanta waa inaad isabaabushaan maanta waa inaan bilownaa sidaan uga shaqayn lahayn jidadka magaalada sidaan u nadiifsan lahayn guryahan naga dumay sidaan u dhisan lahayn dadka qalbigooda hoose dumay sidaan u kacin lahayn maanta waa inaan ilaahay ka wada cabsanaa oo qabiilka dhinac isaga dhignaa maanta waa inaan wada aqbalnaa musuqmaasuq iyo laaluushka inuu dalkan dumiyay maanta waa inaan aqbalnaa inaanay adduunyo noo imaanayn dalka noo dhisto qof walba oo Soomaaliyeed oo maqlay waxaan rabaa maanta inaan u sheego inaan hortiina ka qiro inaan anigu diyaar u ahay qaybteeda inaan qabto su'aasha la isweydiinayo waxay tahay marka ma jiraan shacab Soomaaliyeed oo diyaar u ah dalkan inay dib u xoreeyaan haddaad diyaar u tihiin annaguna diyaaran 17 sano hadda la soo dhaaf oo dhibaatada Soomaaliya ku socotay wixii dhigay inay ahaayeen qabyaalad oo qof ku dhex dhuumanayo qabyaalada mar walba waxa wata ama ku shaqeysta qofka xun qabiilkan wuxuu qariyaa qof kasto xun waa qariyaa waa qarsadaa qofkaasna ujeedadiisu waxay tahay dan shakhsi ah dan guud kama shaqeeyo qofka qabiilista haduu yahay qabiilku wuu isticmaalaa marka ugu dambaysa isaga ku dhamaataa saas darteed waxaad ogaataan qofka qabiilka isticmaala halaga fogaado waad ogtihiin hadduu qabiil macna leeyahay 17 sano waxaan noqon lahayn wadamada ugu qanisan adduunka yaa noqon lahayn haddii marka qof idin ka mid ah halkan uu joogo oo wali ku mashquulsan inuu ka fikiro qabyaalad oo wali ku mashquulsan dawladnimo xumo oo wali ku mashquulsan inaan la isu tanaasul oo wali ku mashquulsan inaan la isu dulqaado waxaan ku sheegayaa waqtigaas waa la soo dhaafay dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego khibradeyda adduunyada meel walba oo dad Soomaaliyeed ay joogaan hoos baa naloo eega meel walba oo aad istaagtay haddii aadan hadlin midabkaada iyo shakligaada waa la ogyahay inaad Soomaali tahay aeroboor walboo tagta waa lagu joojinaya xuduud walboo tagta waa lagu istaajinaya dunida meel walbo ay Soomaali ku nooshahay dhibaato ayaa haysata war qofina sharaf ku yeelan maayo dalka dibadiisa haddaadan marka hore dalkaada sharaf ku lahayn
haddii aad shaqo ka bilowdo meel adduunyada ka mid ah oo aad mustaqbal gaarto dadka ajnabiga aad la shaqayso way ku faaninayaan. maxay kugu faaninayaan ma taqaanaa? waxay kugu faaninayaan wax aad u malaysa inay tahay faan laakiin cay ah. waxay ku leeyihiin adigu soomaalida kale waad ka duwan tahay. waxay ku leeyihiin dadkaadu way saakhideene adiguna maxaad u saakhidi weysa. waxay ku leeyihiin yaa soomaali ka filanaya wanaag, yaa soomaali ka filanaya horumar. anaa idiin sheegaya annagaa ka filanayna soomaalida wanaag. annagaa soomaalida ka filanayna horumar. waajibaad baana saaran, idinkana waajibaad baa idin saaran. annaga waajibaadkana saaran waxay tahay inaan idinkeena dowlad wanaag oo aan la tartanno dowladaha kale oo shisheeye inaan la tartanno. waxaana saaran oy tahay magaaladan aragtaan oo burbursan 4 sano gudaheeda inaan ka soo saarno magaalada ugu nadiifsan, magaalada ugu qurxoon inaan ka soo saarno. waxaa naga go'an inaan cadaalad qof walba oo Soomaali ah uu helo si uu qabiilku uga fogaado. inta badan qabiilku waxa loogu dhawaadaa maxaa yeelay dawladdii idinku aad laheedeen yaa laga yaabaa cadaalad darro idinku sameynayso. marka haddii annagu aan ka shaqeyno qof walba xuquuqdiisa inuu helo qabiil uma baahnidin. waxaan ka shaqeynaynaa intaasoo dheer ammaanadiina inaan idin ilaalino oo dhaqaalaha aad dhiibtaan oo yar inaan si fiican idinkugu maamulno oo aan adeegii dawladda aan soo celinno, iskoolladii aan soo celinno, maxaan ku idhaahdaa caafimaadkii aan soo celinno, jidadkii aan soo celinno iyo waxa loo baahan yahay. idinka waxaa laydinka rabaa marka kow dawladdan in aad taageertaan 100% aad gacan siisaan oo maanta haddii laydin yidhaahdo soo baxa halkaasaan qabanaynaa uusan qofna istaagin. waxaa laydinka rabaa inaad ammaanka nagala shaqaysaan. ku qanacsannahay jidadkeennu inay nus xiran yihiin weli. ma ku qanacsannahay 70% oo ay shacabka Soomaaliyeed dhalinyaro yihiin inay baagamuddo yihiin. ma ku qanacsannahay jaamacadaheena iyo iskuuladeennu inay ka tayxun yihiin kuwa dalalka dariskeenna. haddii aanan ku qanacsanayn waxaan idinka codsanayaa sida soo socota. waan isku daynay sidii hore halkanna waan dhaafi weyn. haddii aan marka geesinimo yar muujinno oo aqbalno in aan isbeddel samayno fursadda aan dalkan ku gaarsiin karno meel ka wanaagsan meesha hadda uu joogo ayaa ka weyn inaan dib u noqono. aqbalayno dhashiikayaal in lagu wato magaalada Muqdisho. waxaan idiin sheegayaa go'aankii ay soo saareen golaha wasiirada oo ay ku jirtay inaan qofna wada karin in ka badan 4 aake iyo 2 baabuur in shaqadiisii maanta ay bilaabatay laga bilaabay qoryo waaweyn in laga aruuriyo magaalada. si marka hawshaas iyada ahi ay u socoto waxaan idinka codsanayaa inaad adkaysataan waxyar nagala shaqaysaan isbeddelka dawladnimo oo muuqda. isbeddelka dawladnimo wuu muuqdaa. xanuunkii waa nahayaa 26 sano oo shakiga ahaa oo kalsooni darrada ahaa oo qofkii meel la geeyaba markiiba uu eriyaayo qofkan ku qabiil ahayn markiiba uu ka soo buuxinayo dadkiisa. wallaahi billaahi inaysan dhicin anaa idiin sheegay. hadday dhacdana ninkaas wasiir ummadda Soomaaliyeed u noqon maayo. marka qabiilkiis meel ha ka raadsado. maxaa u gashiin militariga Soomaaliya in asasaan? maxaa u gashiin inaad dawlad wanaag u keentaan mushaarkoodana aad bixisaan? waxaad u gashiin inaad niyadda ka taageertaan? mise waxaa ogoshihiin inaad u difaacdaan dalka sida ay diyaar u yihiin inay difaacaan? ma ogoshihiin inaad bixisaan ultimate sacrifice sida ay diyaar u yihiin dalkooda inay ugu dhintaan diyaar ma u tihiin idinkaa hogaamiya? inaan u istaaganahay diyaarna u ahay inaan u dhinto dalkii. haddii wiilasha Soomaaliyeed oo dagaalka kula jira shabaabka ay iiga yeeraan ma maqlaysaan wasiirada dalkan fadhiya difaaca ay iiga yeeraan safka hore oo difaaca waxaan idin ballan qaadayaa inaan diyaar u ahay inaan la istaago.
فأكلفيسا سوماها إن النفتي ذكوها والله وأن دارنا يسيار بان هذا أركتان للعب إذن كأرو صنايا والله وضع دقالينا ديار موتيهين ديار موتيهين أننا مشاهر سيصنعنا عيدا مضينا بمغلسان ننكي wax ka badan raadiya ninkana u taagan yaro u taagan ma garat tiirana sugaya maxaa yeelay qaadu dariiq diinteena diiday annaguna ma ogolin ma maqlaysaan Soomaaliya sida kaliya ay ku horumari karto waxay tahay inaan ka adkaana cadawga annagoo midaysan xukuumaddu waxay idin ballan qaadaysaa in bil walba marka ay dhamaato aad heshaan mushaarkiin xukuumaddu waxay jirtaa 2 bilood waxaan aaminsanahay Janaayo ilaa bisha Abriil in qof walba oo ka mid ah ciidanka la siiyay mushaarkooda soo sidaas ma waxaan ka codsanayaa taliyayaasha inay si degdeg ah ugu soo gudbiyaan sababtoo ah dawladda iyo xukuumadda waxaa ka go'an in qof walba idinka mid ah oo gashan dharkaas in la siiyo mushaarkiisa bil walba markay dhamaato waa dawlad shacab rabitaan shacab ku timid weeye qofkii uu awoodan idinka askale annagu ma lihin annagu waxaan idinahay adeege ma maqlaysaan waan idin adeegnaa oo kaliya waxaan idin adeegnaana waa 4 sano oo maamul walba loogu talagalay inuu joogo waa dimuqraadiyad hadduu shaqo fiican qabtana waa joogi hadduu shaqo xun qabtana idinkaa bixinaya insha Allah waxaan idin sheegayaa anigu 4 sano ku xigta shaqadeeda ma aha maanta shaqadeedu tahay maanta ma maqlaysaan uma hanqal taagay 4 sano soo socda iyo wax ka dambeeya maanta in wax la qabto idinkana ay gala shaqaysaan intaas ma yeelaysaan jid fiican yaan falnay oo cusub oo ah koow jidkaan furnay wuxuu yahay 2 arrin in xukuumaddu ay noqoto xukuumad hunsheeg ah xukuumad hunsheeg ah iyo xukuumad aamin ah oo wixii loo dhiibay sidii loogu dhiibay dadka ugu qaybinaysa mi garateen waa xukuumaddii aan bilownay waxaan rajaynayaa inay xukuumadda saas ku socoto katashada cadawuhu isku diidawada nin lagu seexdo waa seexan xilbaad sidaa seexan